دورتا حقنا عطادو سيجي جمالو نهرقل كيسيجي جمالو نهرقل قولي استعبدو نهرقل هذه كان كراعني نهرقل وانو كوتشيبوني نهرقل كل ميات كبيرتي نهرقل وانو كافلين نهرقل مرشحي xisbiga mucaaradka ah ee ucid aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Berbera iyo dhammaan deegaanada gobolka Saaxil soo dhaweyntaasi Jamaal Cali Xuseen ayaa waxa ka qayb qaadanayay barasaabka gobolka Saaxil maayirka degmada Berbera gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil shaqaale weynaha wakaaladaha dekedda dawladda hoose biyaha iyo kuwa kale soo dhaweyntaasi ballaaran ee loo sameeyay aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen waxa ay dadweynihii soo dhaweynayay iskugu soo biyashubteen xarunta uu xisbiga ucid ku leeyahay magaalada Berbera ugu horreeyna waxa halkaasi ka hadashay gudoomiyihii hore ee xisbiga ucid ee gobolka Saaxil Marwaroode Axmed Yaasiin taasi oo dhayda ka cadaysay mustaqbalkeeda siyaasadeed xafiiskii uu xisbiga ucid ku lahaa magaalada Berbera maadaama ay waqti xaadirkan ku biirtay xisbiga wadani oo hadii aanu siyaasadda ku tagno wax badan inaga dhaxeeyaan waxaan leeyahay reer Berbera aniga hore TV-ga iga daawateen mowqifkaygii waan sheegtay laakiin maanta waxaan walaalkay Jamaal ku wareejinayaa xafiiskii xisbiga xafiiska xisbiga waxaan marka ugu horeysa uga mahadnaqayaa oo xafiiska iyaga hore u kireeyay maayirka magaalada Cabdishakuur markii aan isku tiimka ahayn ee kubadda meel ka wada ciyaaraynay xafiiska Cabdishakuur markuu naga tagay waxa la wareegay xildhibaan Salmaan Cali Khayre oo ka shaqeynayay xafiiska oo lahaa awoodiisa hantigiisa iyo shaqadiisa 4 sanadoodna dagaalka uu ku kaliyeystay aniga iyo isaga ee aan iskaga soo horjeednay kooxdan maanta wada taaganahay qaar ka mid ah xubnihii xisbiga ucid ee garabka Jamaal Cali Xuseen iyo dhalinyarada gobolka Saaxil ee taageersanaa xisbiga ucid gaar ahaan garabka Jamaal Cali Xuseen ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaan halkan aan ku taageersanahay oo xoogayga iyo xuduudeeda baan ku muujinaynaa inaanu Jamaal la garab taaganahay halku uu ku biyo shubanayo iyo go'aan kastuu qaadanayo iyo hogaamin kastuu noo samaynayo halkan waxaa ka muuqata bishaad fara badan oo maanta Jamaal Cali Xuseen la garab taagan taageero muddo fara badan naga garab yaacayay bacadka iyo ma garanaysaa hawsha adkeedaan soo galnay halgankii laakiin maanta waa ilaahay maadi hadii ay nala garab joogaan oo nala halgamayaan oo guul nala raadinayaan ka mahadnaqaynaa waa isku ogeey waa la ku yaqaanay waa hawsha qaba jirtay walba sawlo soo dhaweystay ma soo dhaweysan Jamaal iyo maxay ka sharaxeeni maanta insha Allah ta'ala halkeen ma hawsha ka soo wadeynaa madaxweynaha isagoo aba Soomaaliya laga arki doona insha Allah ta'ala waqti dhow oo dhaqsaad ay ka dhigo insha Allah ta'ala dhow saas isku taagayna gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen isagoona dhaliil u soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga ucid Faysal Cali Waraabe sheegayna inuu maanta laga bilaabo ka baxay xisbiga ucid in anigu markii aan bilaabayay siyaasadda musharaxiintii ugu horeysay ee aan soo sharaxay golaha deegaanka halkan ka bilaabay siyaasadda waa magaalada Berbera weeyaan oo aan ahaa xisbigii ucid markaasi marka waxaan isiri markaad xisbiga ucid khatimaysidna Berbera laftirkeeda ku khati haddii xisbigii maanta uu sidaa noqday de waxa weeyaan inaynu ka digan rogano waa lama huraan weeye maanta waan idinla joogayaa waan idinla sheekaysanayaa fikradihiinina waa idin weydiinayaa insha Allah anigoo Berbera jooga ayaan ku dhawaaqi doonaa halka aan u digan rogan doono insha Allah anigoo Berbera jooga laakiin maanta xafladdan soo dhaweynta waxaan doonayaa in aan ku sheegno inaan xisbigii aynu ka baxnay maanta laga bilaabo oo aynu tuurnay calankiisana tuura isku soo wada duub aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen ayaa sheegay inuu dhayda ka cadayn doono halka uu ku biirayo inta uu ku sugan yahay magaalada Berbera
cabdiraxmaan maxamed cige telefishinka Sam News TV magaalada Berbera.